بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى، إلهي بكلية ما هذا له، إلهي سبحانه وتعالى نمعونك بدن إنه ما يستبع ما هذا له. ما قهر وحن تهني لا هاي بل عيد مبارك، عيد مبارك لا هاي الشعب الرئيس ومالنا قرب الشوقية قرب الشوبة عيد ماذا قارب كسيدة بوليسكا كنا متقلي دبا وأنا إن شاء الله تعالى لا سنة كيسين ونبضها ودلكين ونبدي هاي وحدودين يجونا وبرواقسن ولا اعتراف إلهي نتجوج سبحانه وتعالى. سيد عادو إنه هان شرتي وحن شاء دلك يقول وداقنو كل بحالة دلك يا ما أنت ده دور شدي بقى الله هروب قاطعه عندنا حسب عدنا برنامج كي وزميد محمد شيء شعب الرئيس ومالان أنا وحنا هاي مشرح الرئيس ومالان مشرح عن رئيس ومالان متقال حاجة كل شيء هنا إيمي سو مالان ودن أيام مشرح هاي حسب أنا أوقالي أسمي سياسة أوقالينا إن إنه نقولنا وحين هنشرني ومدي الصومالي ده عرض كي الصومالي ده تقول بني ما قاطع إنك عرض كين إن عرض نبديني دقن كيني وناكسنا هويجي هاد سوقانت صومالي هاد بعمل الشركة هل قف بعمل الشركة هايستا إكسبورت ليسن صومالي مشرين أنا كنت رسمي تعليمته يلا هي administration نظيفة أيام إنجليز كالحل إن أنتي سوء النمر دملا حسوقين ويحنا نقول عاي ولي اسمه راح نقول ساقة حنتي ما أنت شاب عاد سود بيه بقولك ما كذا لو كان اسمه لهن حنتان نقول نفط هذا اللي بحصن تضيع عروت هذا إن تينو عضو أي سياسة وكذا العقب على سير يا أنا العقب ما هيستو waxaan ka codsanayaa dadka dawladii ku jiray ee suuqyada la wareegaya xafladaha reer baan ugu soo biiray ciidagala ugu soo biirayo lacagta la ordiya anu dantiina ka shaqeynaya waxaan doonayaa haddaan insha Allah taala soo baxo inaan dad mutacalimiina aan keeno meel kastaba maanta qof qura oo aan arkayna ilaa minister ilaa head of department meeshu joogo aqoonteedii ma jiro reerhaan baa loo keenay anigu aqoon baan u keenay insha Allah taala maanta dadkeen reer miyiga ee qorigooda iyo raashinkii qaxoontiga ee la siinayay aynu dalka ku xoreynay maanta cusbitaal ma haystaan caruurtoodu iskuul bilaash ma haystaan biyo nadiifa ma haystaan wado ay ku keenaan xoolahooda ma haystaan maxaynu markaa aynu ku faa'iidnay cashuurta way bixiyaan dadku cashuurta la bixiyo lacagteena maanta haysano ilaa 400 milyan baan dhaqaysay budgetkeeniyo haddaynu rigaa haysay xilka ay mas'uuliyiin yihiin oo dadka ka naxayaan maanta cusbitaal fiican way heleen hadday u yartay 6 gobol 6 cusbitaal oo isbixiyo bilaash waa laga helaa tacliintana waxbarashada ilaa iyo secondary bilaash baa laga dhigay macallimiin lacag la siiyay laakiin waa loo jeedin ajandoogu muu ahayn halkaa gufee halkaa qabo wax xil ka saarna ma jiro anigu waxaan ii sheegayaa inay wax noqotaan ayaan noqon inay dalkan noqdo insha Allah taala Singapore to Africa maalinta xusbiga sameeyay khudbadan ka akhriyay 2001kii berbera waxaan berbera insha Allah waxaan Hong Kong baan ugu saameeyay si aan ta urmay waan ka shaqeeyay DB World ana ka shaqeeyay way ka soo horjeeray badan hadda aan ogahay inaan ku faanaa aniga waxay igu soo talagelaysaa inaan idin shaqeeyo inta cimriga ka hadhay ilaahayna insha Allah taala ilaahay waxaan ka bariyay
inuu ilaahay idilin ilaa aan Somaliland xuquuqdii halkaas soo dhigo halkaasay taagantay caad ma saarna madax banaanantiina inaga doonan weynay oo waxaanu doonan weynay inaga hoggaan baan jirin hoggaan ayaa jiray waan garay xama marka waxa weeye anigu markaa haddaan nahay xusbiga waxa la kala dooranaya horta waa musharaxiinta weeye musharaxiinta ayaa la kala doorta musharax waxa lagu kala doortaa iimaankooda dhaqankooda diintooda iyo barnaamijka ay hayaan ay leeyihin dalka waan ku wadaynaa anigu markaa waxaan iibinayaa haddaanahay musharaxa xusbiga cadaalada iyo daryeelka dalkan waxaan u imi ah inaan noqotaan 10 sano gudaheed baan berigii ordi haddana idin balan qaadayaa haddii ilaahay yidhaaho wadooyinka dalka Soomaaliya waan isku xidhayaa insha allahu tacaala ilaa xeebta haddii ilaahay yidhaaho waa wax sahlan waaweyn cuntadeena inaan isku filnaadaan shacnay insha allahu tacaala gabiile boorame beer iyo oodweyne dhulkaa biyuhu fadhiistaan ayaan doonaynaa ka beerna insha allahu tacaala cuntadeena oo cunto nadiifa organica ayaan soo saarnaan doonaa insha allahu tacaala reer guuraag waxaan jecelnay insha allahu tacaala inaan daryeelno aanu ka bedelno habkii hore ee loo dhaqi jiray xoolaheena marketka qolay sacuudiga waxaan jecelnahay inaan xoolaheena waa xoolaha adduunka lagu jecel yahay inaan suuqyo kale u doonaan doonaa insha allahu tacaala waxaan jecelahay insha allah islaanta haysata tamaandhada iyo muuska ee miskiinada ah inaan cashuurta ka deynaan doonaa insha allahu tacaala maxaad ka cashuuri doonta qof haysata af xabo muusa waxaan bilaabi doonaa mini credit amaah yar baan dadka siin doonaa dadka mashariga yaryar iyo kuwa dhexba oo lahayn dul socod baan siinaa insha allahu tacaala si ay meherada haysad ku camirtaan baan doonaa insha allahu tacaala waxa adduunka ka socda maanta wey ciidamo waxaanu samayn doonaa insha allahu tacaala mekhanisma oo hubka casriga ah insha allahu tacaala aan ku samayn oo laga boqo booliis nidaam qof aan booliis ku jira oon iskuul ka soo bixin ma jirayo hadda insha allahu tacaala iskuuladaan ka qaadan doonaa tilmiidankaan ka qaxayn doonaa secondary masaakiisha ka qiin doonaa insha allahu tacaala mutacalimiin mushaarka u fiican baanu siinaa iyaga macalimiinta iyo dhakhaatiirta adaaliyasa insha allah wasiir kasta oo meeshiisu iimaan leh xaafid amiin baan ka sameynaa insha allahu tacaala xakiim waxna garanayo hadda waxaan wadnaa shopping list baan wadnaa Somaliland dadka ku jira adduun ku tafaraqsan ayaanu insha allahu tacaala sameynaa aan wadnaa oon wasaarad kasta dhibaarka qof aqoon leh baanu geynaa iimaan leh baanu geynaa oo qayilin dadka xoolooda ku qayilin waxaan kaloo tii sheegayaa shacabka reer Soomaaliland horta aanu maanta xalkii baan ahay xalkii Soomaaliland 94kii Soomaaliland keena xalku nabadii baan keenay halkii 94kii maanta aan joognaa maanta qofka qura ee ka saari kara ana waxaan u arkaa inuu isfaanineen in aniga ahay waxa kale ku dareena waxyaalo qabanno maanta sharci dhul ma jiro anu maarayaa dhulka Soomaaliland markii isku jirtay baan ahaa sharcigii Soomaaliya markii ku jirna soo celinina hadii la yiraahdo qof dhul waayaya iyo qof iska jeexanaya 2 kiiloomitir iyo kilomitir ma jiriyo sharcigii dhulkan soo celin aan ku shaqeyn jirnay goof dambe oo la oranaya waa sharci qofka loo shaqeeyo ma jirto dawladda ayaa dhulka leh nin dhul sheegan kara ma jiro hadii la yiraahdo qof ka soo reer Soomaaliland dhul waayana ma jiro oo jar iska soo laalaaday iyo hadna wadaad ku qaadaya ma jiro kii taajirka oo dhul iska xiranaya aan waxba ka dhiseen warshad ka dhiseen ya dhakhtar ka dhiseen cusbaan ka dhiseen qofkii bolog doonaya waxaan oran jiray ku soo xid mashruucaad ka dhisid laakiin qof iska xidhay bologyo ما دعيس شرعي ما سوء لنا شرع ما سوء لنا إن شاء الله تعالى
dan yartay ku abshirayaan qof kasta dhul siinna insha Allah taala dekedeena maanta waa taas way irmaanaatay insha Allah taala July eerga amba July horaanteeda heshiiska la saxaya ilaa iyo South Sudan ilaa Chad bayn waraabina insha Allah taala kaybilkeena iyo shidaalkeena insha Allah taala waxay noqonaa wadaga durbay inagoo bilaabin baa noqotay berbera halkii maraysa diruu aragtay dekada berbera halka gaadhay adduun ummadayada waxaan ku xukuminaa kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka Alayhi Wasallam la ilaaha illa Muhammad rasuulullah labada anaba ku taala iyo shabaka tawxiidka qabyaalada burburin insha Allah taala sidii Mongolia ku burburiyeen way burburiyeen qabyaalada ummad bay dhiseen haddana waxay dhiseen empire inagu empire gaar ma ummad baan dhisnaa midaysan oo diin oo iimaan leh yaan dhisnaa oo lagu tusto oo role model noqotay caalam islaam insha Allah taala Soomaaliland muran gelimayso raga maanta la Soomaaliya ixtiraafi maayo anagoo curadkii ah Jabuuti waxaan leenahay hore waan u sheegay haddaad nuqusho ku haysid muxabbo ku haysid anu soddon la joogna anu soddon ku ugu tagbaan leenahay wayda kan xididaya isdhukanaya Xasan Sheekh in Ilyas waxa leeyahay wasiirka maaliyadda ilaha anagu mowqifkii uu cad yahay Soomaali midnimada ilaalinna aduma Soomaaliyeed Soomaaliland ma joojin kartaa reer Jabuuti haddaan idinla ficiltana waa burburisa laba qowmiyood baati anfar baa halkaa joogta markaas leedahay awda lama noolaan karta Soomaaliland anfar baa kula nool oo kilika shanaad kilikii anfareed oo Itoobiya ku jira ayaa oran kara anaga anfartana soo raacay inta Jabuuti raacda halkaas dekad nagu dhow waan xishoonina hadda geelo xishoon weydid waan kula dhigi doonaa si qaadwalayaasha waxa la shacab reer Soomaaliland fara la isku fiiqa ma jirto waxa loo jeedaa waa la inoo tashaday xasuuqii la doonay la damacsan yahay hal saamaxo garbaha la isqabsado islaantii hadliisay oo magaranaysa reer Burcaheed kilib la ii soo diray waxay tiri waxa doontaan cuna laakiin ha dulmina bay tiri aruutina dumarkiina soo dulmi maadaama markay nin aan waxba tarin oo lacag ka qaateen oo tuulo ka soo baxo wali shaqo qaban ay ilaahan doorta ay doortana wasiir noqdo soo dulmi kuma sameyn oo halka umada wax uga qaban lahaa daara dhisto waa la inaga adkaaday siyaasadii wax inaga adkaaday maanta kulmiye qabtay shirkii aan la nagu qasbay ee 2012 ragii aan la galay waxay rag xamar ku xiran oo ku hada sheegaya Xasan Sheekh وين اسدول صارنين دوش رئيس سومالند بانو كوهين ما انت ولا نشيلي شعب رئيس سومالند صدح لي حسبي يصدحي مشارح مدحوي قف كسو لا غني وحو غدي وحو قالي وحو سومال كيا هبا يو صبيريو هذا بس عليها يا لو امني كرا دلك يا مانت تاغن يا لا صودا ابو قيل ما تاغنا او قولي ولا صودا شعبي شبوق شنو طلباتنا يعني كتلينا رئيس سومالند ولي ان ديبتي سومالند ضرورياتك بيسك سيلف سكول مسؤولين ان شاء الله تعالى وحلينا هاي رقب عن الشركه هي سومالند ما انت اخرى لعقتينا من دفاع قرنك يي صوبخو ضد نظيف الى كبقيه ايات كعصنا ما انت halkaas oo taaganahay crossroad baan taaganay crossroad baan taaganay waan gacmaha la isqabsadaa jeebka gacanta gelisaan dadka midaysaan culimada waxa leenahay sheekhi inagu diinta wada barateen Nairobi ka saalayayo Mareykanka ka saxu leeyahay waa lagu jannada tagay reer Sheekh Isxaaq hada buu ku leeyahay adna waxa leedahay nabad baan rabaa labada kitaabkeeba raacna
ما يجوز كتابه هين كاس كتابك سيستم ما نهيسن محكمة ما صار تبقى لنا رجع ما تسوي ما ليدي وأنا بابين عايته كم بدي هاي فيصل كا شيء بلاد ديجان كم بدي هاي نعسك كوفي دقاتي كم بدي هاي فقي وأنا سكيك علينا يوسف كلام السعودي قاعد دمي يسياله العقد تشوفين قارين يا ما قال وحوي سيسو مالنا وحلينا هاي marka isku tagtaan midaysanahay cid inaga ilaahay mooch cid inaga adkaan ma jirto madaxweynaha waxa leeyahay dagaalna ha qaadin doorasheenu gelina doorashahaas xuduudaheena waxaan ilaalinaa sanaadiiqdeena ilaashanayna dadku taasay ku midaysan yihiin waa daasan doonayaan loo jawaabi hal isdifaac priority-na waxa weeye inaan doorashada qabano insha allah waqtigeeda ku dhici doonta insha allah bi'idhnillah karim saddex xusbina guddoodooda samee ha bilaabeen shaqadoodii marka la arkay inagoo saddex xusba wada shaqaynaya oo ka shaqaynaya doorashadii 13 November cadowgan uu jabi doonaa ummaduna way israaci doontaa fiqba ku hanjabi oo leewan kala ana kala dirdin oo kala qaybinno ilaa baa ku dhaariye maanin inuu hanjaban fiqi maanin waxay noqotay ninka xamar joogay xasan sheekh oo ilaaha barbarno ma bixin karaan baysa ma bixin karaan Soomaaliland how they dare say ku dhictaan waxay noqon hadlaan ma inuu dhiig lahayn marka ninka halka xamar joogay goofkiisii jooga leeyahay ay soo bixiyeen taasoo space bixiyeen dhulkiisa ka bixiyay inuu ilaaha Soomaaliland ma bixin karto waxay doonto ma samayn karto soo inaga nagama arag dhiig yeesha oo hablihiina iyo caarkiina sharafteeda ilaaliya tagtaga moodaya inaan jabnayn maanu jabin laas caanood arrinta ka dhacday wayna midaynaysaa wake up kooda waanu imanayna xuduudiyada laas caan waxaan leeyahay waxa qaxiseen dadkii soo celiyaa qaxiseen war caruurtii soo celiya Somaliland laas caanood kama goyn kartaan fiqi dama samayn jaro dawlad ma tiisi وغوي قال كأيانو تيكرين وقال لا أنا سامعني يا كاتم الآن هذا ما يستي you can do it ما وحلا ولا عليه عيد وناكسن هني تشابينا خير كينا وبالعمي خير كينا وبالعمي دبل مراكبتي وتكون صحيح النساء بربرة إثيوبيا تدل غير ويجي لسامي هرجيسة إلى إثيوبيا بربرة إلى هرجيسة إلى نندق قوب بركيسة عدي يدل كنا وديهن وصوصارنا إن شاء الله تعالى معدنت ما قام برارة إلهي شكري نغا إلهي بقعدين إن شاء الله دين الإسلام إلهي توحيد كأنه قول على كينا تاكو سحلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته